muddo sanada ah Mary waxay ku tiirsaneed jaadka ka baxa beerteeda 6 sano ka hor dawladda Ingiriiska ayaa joojisay in jaadka loo dhoofiyo dalkaasi waxaana taasi ay keentay in uu soo haro suuqa Soomaaliya oo kaliya balse bishii Maars ee sanadkan dawladda Soomaaliya waxay sidoo kale joojisay in jaadka Kenya loo dhoofiyo dalkeeda waxaana xilligaasi sababta lagu sheegay cudurka corona si lamid ah kumanaanka kale ee beeraleyda jaadka Mary aad ay u walwalsan tahay dhibaato nololeed ayaan ugu dhacday ceer ayaan u noqonay lacag la'aan darteed in aan wax cunno waan ugu dhib caruurtana wax aan siina ma hayno dhibaato ayaan ugu habsatay tan iyo markii la mamnuucay dhoofinta jaadka hadda $1 nagama soo gala jaadka ka baxa halkan waa isha dhaqaale ee deegaanka Meru ee bariga waddanka Kenya ururka ganacsatada jaadka ee Kenya waxay sheegeen in maalintiiba ay Soomaaliya u dhoofin jireen 50 tan oo jaad ah waxaana ay ka heli jireen lacag ka badan $150,000 maalintiiba balse hadda oo aanay taasi jirin waxay qayb yar oo ka mid ah ay u iibgeeyeen gudaha waddanka halka inta kalena ay qubaan goobtan waa mid ka mid ah bakhaarada lagu cabeeyo jaadka ka hor intaana loo safran Soomaaliya oo waxa halkan buux dhaafin jiray dadka ka shaqeeya jaadka iyo jawaanada jaadka waad arkaysaan idinka laftiina indiina bay hayaan gawaarida lagu shaqaali jiray jaadka ka shaqeyn jirtay bakan ba iska wada yeelan wax hadda ka shaqeynaya malaha sidaas awgeed sida dadka loo kala firfircoonay qaadna ba iska yargaleen beecsharo kale ba iska galgaleen xaafadaha badan ba Soomaali badan ba hata halka ka guurtay qaarna halka ay ku tawaalaysan yihiin oo xogaa ma aragtay ma ay guuri karaanba wax shaqo ay hayaan malaha in yar ba hadda tuulooyinkan oo Northeastern wax yar u dira inta kalena intaas bay ma aragtay inta wax dartay ay leeyihiin la fahanteeda dadka qaar xamalka u dari jiray baan ka mid ahay shaqaale badan bay shaqayn jireen marka maadaama shaqaale badan bay shaqayn jireen madow iyo Soomaali wax kasta bay isku dhaxdhafnaayeen intiba hadda waa shaqalaan oo waa iska joogan wax ay hayaan malaha in uu meesha ka baxa suuqa jaadka ee Soomaaliya ganacsatadu waxay sheegeen in dhaqaale xumo baahsan ay ka dhalatay xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dhinac ma ahan mid sahlan in la xaliyo dawladda federaalka waxay Kenya ku eedeysay inaanay u hagar bixin xag diblomaasi iyo mid ganacsiba waxaana ay shuruud hor dhigtay dib u fasaxidda jaadka xukuumadda Muqdisho ayaa doonaysa in Kenya ay joojiso faragelin ay sheegtay inay ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya hase yeeshee eedeymahaasi waxaa beeniyay dawladda Kenya waxaa jira safgarad ay gaareen Kenya iyo Soomaaliya kaas oo la xiriir ganacsi dhinacyo badan leh jaadkuna waa mid ka mid ah waxay ila tahay in dawladda dhexe ay sameynayso wax walba oo karaankeeda ah waana ku rajo weynahay in arrintaasi la soo afjari doono iyadoo taasi ay jirtay ayaa toddobaad ka hor Soomaaliya waxa uu yeertay safiirkii u fadhiyay Nairobi halka kan Kenya ee Muqdisho ay ku amartay in dalkiisa uu wada tashi ugu laabto taasi oo calaamad u ah xiriirkan wanaagsan ee labada dal inta ay labada dal ka heshiinayaan waxa hubanti la'aan iyo dhibaato dhaqaale wajahaya beeraleyda iyo ganacsatada jaadka Bashir Maxamed Caato BBC deegaanka Meru ee bariga waddanka Kenya